injineer cabdixakiin cabdilaahi xaaji cumar camey madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland oo dhowaan soo gaadhay magaalada buuhoodle ayaa si weyn maanta loogu soo dhoweeyey magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn iyadoo lagaga hortegay meel ka baxsan magaalada wafdiga uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland injineer cabdixakiin cabdilaahi xaaji cumar camey waxaa ka mida guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka puntland xubno ka mida golihiisa wasiirada iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka puntland madaxweyne ku-xigeenka ayaa markii bulshada uu soo gaadhay waxa uu kula kulmay deegaanka riiga oo ka baxsan buuhoodle halkaas oo salaan sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada intaasi kadib waxaa loo soo gelbiyey gudaha magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn iyadoo dadweynuhu ay isugu soo baxeen garoonka kubadda cagta ee xabado halkaasoo shucubtooda ay ku cabireen waxaa halkaasi bulshada kala hadlay ka hor madaxweyne ku-xigeenka cuqaasha isimada iyo waxgaradka gobolka cayn kuwaasoo u sheegay madaxweyne camey inay diyaar u yihiin wax kasta uu ka codsado cudud iyo ciidan labadaba ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer cabdixakiin cabdilaahi xaaji cumar camey kaasoo ku dhawaaqay in buuhoodle uu yimid oo keliya inuu ka helo cudud ciidan iyo calaf si deegaanka looga saaro maamulka somalilan oo gacanta ku haya qaybo ka mida gobolka sool madaxweyne camey ayaa ugu horreyn u mahad celiyey dadka soo dhoweeyey isaga oo sheegay in lagu yiqiino dadka reer caymeed iyo dadka sool sanaag iyo caynba gobonnimada sharafta iyo soo dhoweynta madaxdooda oo ay ka mid yihiin xildhibaano oo ay ka mid yihiin agaasimayaasha madaxtooyada waa wafdigii ugu ballaadhnaa ilaa iyo dowladda puntland intii la dhisay 20 sannadood waa wafdigii ugu ballaadhnaa ee yimaada magaalada buuhoodle iyo xarunta gobolka cayn mudane madaxweyne kala horreyn halkan isugu nimid 24 saacadood soo dhafnay waxaad joogtay gobolka cayn xilligii hore aad noo timay meydii hore waxay ahayd xilli xun oo xanuun jiro abaarina jirto maanta waxaynu ku jirnaa maalin barwaaqaa dadweynihii wata odayaal dowladdu garaadada culimaauddiinta kulli wakaa soo dhoweynaya soo dhowow baan ku leenahay madaxweyne dadkii shacabka ahaa ee aad noo doorateen oo kuwaad soo dhoweynaya rag baa gabayga leelleeliya allaahin ka idlayn laqwi ma aha ee kaygu waa ligiyo miisaan laqbadiyo araartaydu waa lebankii hoobaan laqbadiyo araartaydu waa lebankii hoobaane teer iyo liqaagii hayee baa lay marti ahaaye aan loo yar daacad u dhashay iyo liidar ma ahaaye raggii maansallaydhka u shiday baa looxa ii dhigaye waxaan ahay lodkii aadan carabiliisanka u jareen waxaan ahay lodkii aadan carabiliisanka u jaraye maantana waxaan loogayaa kaad u lahateena lingaxan ka furayaa muddu laabta yirnee ninkii hadalka liishada rabow la qabso weedhay miciyaha libaax durrin gale wuu lisanayaa isagaba ninkii lurugu tagay wuu lu go'ayaa daraawiishilowgay dhigtaa loolan diriireede ama cadowga loogay fardaha leedda ku eriyaani luwaa janana laydhoon askari laban legdoonaya inta layli jabisaa ka badan lagiya aalaafe waxba iyo hartiga liigayaa igu lamaanaane ama libintay daaroodisiin laabkac iyo hiide la yaab ma laha ii doorhkan liganloodi keligaaye aniga iyo luduucahiisa wallegdamaynaay miisaanka iyagu waa midaan leexashaaqoone waxa liifka iyagu saaran yahay laabta unnade laagaha qoryaale iyo markaan labida weydaarsho laagaha qoryaaliya markaan labida weydaarsho laamiga hargaysiya berbere liifa ha u dumee loor fadhantigii daba socday iyo laaran iyo koofil waa taanu laalaabi jiray tan iyo laalayse lidigii colaadaydii baa loogu dawgalay intay aniga igu loohan yihiin lubiyatoodii nin la kuma lifaaqni ee anaa lay hadhsanayaa waad aragtaa shacabkaagii halkuu taagaya waad aragtaa waxaannu diyaar u nahay wax allaale mudane madaxweyne waxaad u baahantahay baannu diyaar u nahay haddaad xoolo doonaysa diyaar baanu nahay haddaad xuduud doonaysa diyaar baanu nahay haddaad tignika doonaysa diyaar baanu nahay
waxaanu diyaar u nahay nimankii annagu aanu isnaqan inaanu annagu labanagdaysano annagu aanu haddii badankadilay qori turan aanu doonaa insha allah haddaa la ka dhigo buuhoodle hadduu dagaalka galana wallaahi waxaa looba ilaah baa loobaaye inay yaacayaan waxaad ka rabtaynaa insha allah bismillaah karimiyada u diyaara waxaan kaloo ilaahay ugu shukrinaqayaa oon ku shukrinaqayaa maanta ummadda aad dhex taagantahay haddii ay isku niyo tahay oo waxaad doonayso ay doonayaan baan ilaahay ugu shukrinaqayaa waxaan anugu ahayn dadka islaamka in la nabadgeliyo waa ilaahay baa faray dadka wuxuu hayay dadka isnabadgeliyo wuxuu ka dambaysiiyey loo xijiyey ninka nabadgelin waaya in haddii aadan ka hortagin oo iska qabano maatadaada iyo carruurtaada ka difaacin qiyaamaha waa lagu weydiinaya waa mid furan marka hore waxaan leeyahay war naga noqda war waa bil rabadaan war ninku wuxuu doonayaa meel aan ahay waa dhibaato war wuxuu wax cuntama maaha dadkan sanaagiyacayn waxaanu halkan ku soo bandhignay maanta oo ka cambaynaynaa shucuurtayada ayaanu ku soo bandhignay inaanaan ka mid ahayn jamhadda soomaali diidka ah inaanaan ka mid ahayn oo aanu ka madax bannaannahay baanu halkan maanta ku soo bandhigaynaa madaxweyne waxaan leenahay shaki baanu qabnay markii hore shakiga aanu qabnay wuxuu ahaa puntland inaanay dagaalamaynin baanu shaki ka qabnay shakigii waa naga baxay oo inay dharbaaxa ku lugaysatay baanu aragnaa annaga waa ma garanaysaan reer buuhoodle ama gobolka cayn baanu nahay taaka kama joogaan jabhadda soomaali diidka iyo deegaankayagii ciidamada qalabka sida dhammaantood waa muuqdaan inay dad muwaadiniina ay calankii soomaaliya iyo puntland ay kirkirooyin ku wataan alxamdulilah waxaan leenahay waan ku darayaa aad baan ugu faraxsannahay tallaabada ballaadan ee ay qaaday ciidamada puntland ee qalabka sida ee ay ku dhufteen dharbaaxada aad iyo aad u kulun gumaystaha SNM. Allahu akbar Allahu akbar bismillaahi raxmaani raxiim sidaad muuqaalka ka arkaysaanba madaxweynihii ku-xigeenka puntland waa guriga yimid maanta waxaan dhambaalka ka daraynaa waa buuhoodle wey waa shaxwi walaalaheena laascaanood dhambaalkii waa la soo gaadhay waadnana arkaysaa haddii ilaahay nafta noo daayo bishaa rabadaan gudaheeda haddii ilaahay nafta noo daayo waadna arkaysaa wejiyadeenna si wacan u eega walaalaheenna mudug in badan baa waxaa maqalnaa sheegaantu sheegaan bay arkaysaa waxaannu idinka warramaynaa waadna aragtaan inaynu saaka qura soo daba baxno ma aha xaaja meeshay maraysa waad ogtihiin reer buuhoodle xaaja meeshay maraysa waad ogtihiin xadgudubna cidna ku samayn mayno xaqu dagaalan baanu nahay xaqu dagaalan baa tihiin laakiin waad aragtaan xaajo waxa rag ka damcay waddanka waxa ragini ka damcay waxa rag waddankan ka damcay waxa dadka magaciinna sheegtay iyo waddankii intii ayna hayini dejay ee idinku dheeray ee aad 20ka awoodda gadayneen waxa rag ka damcay waad ogtahay in badan baanu sugaynay soo dhawow baanu ku leenahay madaxweyne waa ka warhaynaa hawsaad u socoto waxaan rajaynayaa waad aragtaa buuhoodle dadka waxbaa loo kala sheegi jiray maanta anaan waxba tari maayo dadka waxbaanu tusaynaa waad aragtaan reer buuhoodle waad aragtaan reer puntland reer buuhoodle waad aragtaan cidi kama maqna inta maqanna kamaradaan qabanayna waa garoonkay togan yihiin marka hore waqtiga waa soo dhowayna marka labaadna waxaan halkan ka caddaynaynaa oo mar walbaanu ka caddayn jirnay haddana aanu ka caddaynaynaa maamulka somalilan in aanaan wax xidhiidha iyo wax wacdiya iyo wax dowladnimaha iyo wax naga dhexeeya ayan jirin aan islaamnimo iyo derisnimo aan hayn waad ka warraysaan isimada qaybsan baa la odhan jiray labadii ugu dambeeyey laba kala jaamac 24 saacadood ugu dambeeyey hadleen
hadalkoodu waa la hayaa hanaga bixin bay yidhaahdeen intii kalena horay u hadashay waxaannu halkan ka caddaynaynaa inaannu mid nahay waxaannu halkan ka caddaynaynaa inaannu madaxweynaha dowladda puntland profesor cabdirashiid ayaa soo salaamay فريريا كاسي وهم لما عليه ولا كمان ولا تطيع انت من علي غير بلدان ما يكسر على يا اظن كلام انا ضمن لا يدور وفرط التاغيه أنا غير مولاني ما قاعد أنا ولي تقال تروح كل ما ما يقدر أنت تسمع كلها والدارود بس مسوق قارن سجى وحنا قد لداي وحرنا قمت لهم ورنا بقوة نزداد ليش كل وانا كهشينا وانا ما كان قد حجسي خبر شعره وانا اسمقانا شارنا وانا اسملا مركان دونا وانا كهشينا لكن هبقى وها الله من عراض هوري وقلي ومعها من كان شيء يا كنت وحان دلايا وحي دون تبها حاطو هذا الذي سي وحان قد يا دولة كاملة إلا وقتك إساق وحان يري عرو عبد الرحمن عرا يري ما أنت يسوي لحب لو تشوغي لحبلون سووا جوهي يوحنا تشيغان حلقا وضح dadka ummadii kale oo lacagta mariye nooc doonaan bahayeen ilaahay abu maraya dumariyowgii inuu xidho oo laayo waxa yagoori ilaa iyo guumeys iyo og waxaan uga kala gooyeen ma jirto haddii halkaa fadhiya ama dib loo soo kiciyo oo leeyahay gambadha la keenaya wax u dhaxeeya haba yaraatee ma jirto mana qaadan doona mana qaadanayno wixii saa ku sheekeeyeen been ka soo qaada waa been oo runa waxa weeye heer bay taagan tahay maalin dhaweyta waxaan waa nafl caarig waa hubaal weeye inuu nafl caarig yahay qofkii hadle ee wanaag ka hadla ee dadnimo ku hadla ee islaamnimo u hadla jeelkaa la geenaya loo nixmaayo rag iyo dumar iyo ciyaal carruur nooc walba waa la xidhaya waxaa laii sheegayo maanta laii sheegayay 150 bay marayaan xarigga iyo sii dayntii waa nin dalka ka baxaya askartiisiba waxay samaysay inay iibsato konton baa lagu bilaabay xalayna 150 ma marayaan qofkii lagu sii daayo war ma sida xoolaha la idiin gadanaya inuu ogolaana waxa weeye saxaafadda tiifiyadii ka hadlayay kullu waa la wada xidha dimuqraadi baanu nahay iyo sidan baanu nahay iyo aleelaya taasaa beena waa wada xidha war waxaan idiin sheegayaa kulligeen innagoo mid rag iyo dumar qof waliba mas-uuliyadda barta uu leeyahay ka qaato puntland waxay ballan qaadaysaa anoo madaxweyne ku-xigeenkii puntland inta la xoreynaya dalka dagaalkaasi inaanu istaagin baan ballan qaadaynaa horena waa ma aragto si kastaba ha ahaatee madaxweyne cami ayaa ku dhawaaqay inaanu joogsanaynin dagaalka somalilan waxaana uu sheegay in dagaalkaasi uu joogsanayo oo keliya marka ciidamada somalilan ay tagaan deegaanka labada gaatama oo ka tirsan gobolka togdheer axmed maxamed nadiif kalson t v buuhoodle